maanta oo ah 29 May waxay ku beegan tahay markii loo gooni yeelay maalinta lagu xasuusanayo ciidanka ragga iyo dumarka ah ee ku jira howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe kuwaas oo dalalka kala duwan caalamka uga qayb qaadanaya ogolaanshaha qaramada midoobe ee xasilinta dalalka. askartan waxaa ku yaboohay dalal xubno ka ah ururka qaramada midoobe waxaana la siiyaa dhaqaalaha golaha oo u dejiyo miisaaniyad gaar ah si xasiloonida wadamada colaadda ka dhex jirta iyo dalalka muranka xuduudaha ka dhaxeeya ee sababa gacan qaadka ciidankaas ay ugu howlgalaan. fariinta sanadkan waxaa cinwaan looga dhigay ragga iyo dumarka u istaagay nabad ilaalinta waa furaha nabadda waxaana wadamada ku deeqay ciidamada madaxdooda fariin ku saabsan howlgalka ay ku maqan yihiin askarta ay la wadaagaan ciidanka kale iyo ehelkooda. General Qamar Jafid Bajwa taliyaha ciidamada Pakistan oo ka hadlay munaasabadan waxa uu soo hadal qaaday ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe oo ay dawladdiisa ku yaboohday. waxa uu ka sheekeeyay muhiimadda maalintan ay leedahay in furida ay sameeyaan askarta Pakistan ee ku sugan dalalka kala duwan ee caalamka iyagoo xiran koofida buluuga ah ee qaramada midoobe. qorshaheenu waa inaynu nafta u hurnaa badbaadinta dalalka si nabad ilaaliyaasha ay dib ugu soo celiyaan xasiloonida oo ah waxa uu dal waliba u baahan yahay. maanta tan waxaa nagu dhiirigelinaysa in aynu ku dhaqaaqno gobol waliba ha ku yaalee wadan waliba oo dhibaato laga soo sheego ayuu yiri taliyaha ciidanka Pakistan. waxa uu tiriyay dalalka ay geeyeen ciidanka Pakistan ee nabad ilaalinta qaramada midoobe ka tirsan askartooda ayuu ku amaanay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan dadka shacabka ah iyagoo ilaalinaya xeerka caalamiga iyo kuwa dalalka ay tagaan. Pakistan waxay ku biirtay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe sanadkii 1960 tan iyo waqtigaas askarteena waxaa la geeyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Koonfurta Suudaan, gobolka Darfur, Abyei oo ah halka u dhaxayso labada Suudaan ee kala go'day, Soomaaliya, galbeedka Saxaraha, Mali iyo Qubrus oo ay ku hoos shaqeeyaan calanka qaramada midoobe ayuu sii raaciyay taliyaha ciidanka Pakistan. taliyaha ayaa xasuustay dhibaatooyin ciidankooda ay kala kulmeen dalalka ay ka howlgaleen gaar ahaan Soomaaliya waxaana uu sheegay in ciidankii rajo soo celinta Soomaaliya la keenay qaramada midoobana ka haystay fasaxa kuna howlgalaya UNISOM sanadkii 1993 looga dilay howlgalkaas askar u dhalatay dalka Pakistan. bishii June sanadkii 1993 24 askari oo ka tirsan howlgalka qaramada midoobe ee Soomaaliya UNISOM una dhashay dalka Pakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho. wixii dilkaas ka dambeeyay waxaa dhacay isku dhac dhex maray askartii qaramada midoobe iyo kooxo hubeysna oo sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray rayidka iyo askarta. dhanka kale fariin uu soo diray xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres waxa uu geesiyaasha ku tilmaamay askarta qaramada midoobe ee xiran koofida buluuga ah ee dalalka kala duwan ee caalamka ku sugan. waxa uu dhanka kale sheegay in xaalado kala duwan oo ay naftooda ku horayaan in askartaasi ay ku badbaadiyeen dad shacab ah oo ku sugan dalalka ay ku sugan yihiin. muddo 16 sano ah qaramada midoobe howlgalkooda waxaa ciidanka ugu badan ku leh dalka Pakistan. waxay qaramada midoobe ka diiwaan gelisay askar gaaraysa 200,000 oo askari kuwaas oo qaarad waliba caalamka tagay. qaramada midoobe waxay ciidan u direen dalal kala duwan oo caalamka kuwaas oo wata koofida buluuga ah ee lagu yaqaano waxaana sanad waliba 29 May la xusaa askarta ciidanka qaramada midoobe howlgalka kuwa ku dhintay halka la dhiirigeliyo kuwa howlgalka ku guda jira.